qof dadaalo danta guud ee bulshada aan ka daalin iyo mulki ducaysa buu dadku wada calmaadeen qof dadaalo danta guud ee bulshada aan ka daalin iyo mulki ducaysa buu dadku wada calmaadeen. Veteran ambaye wako hapa, ningependa mkaribie. Asante sana. Mimi sina maneno mingi. Ni furaha yangu kuona wenzangu wako pamoja namna hii na tuwe pamoja namna hiyo. Sisi tunasemanga siasa ni maisha. Na siasa ni maisha kama inakusaidia. Last campaign tulivyofanya tulikuwa tumeshikana sana. Watu walikuwa nakimbilia sisi kama viazi tamu kwa sababu ya kukua pamoja, na hiyo umoja wetu itatufikisha mbali sana. Wacha niwaeleze ukweli. Huyu msichana yetu tulijaribu kumbeba na tulimsaidia, na ile alafu Mungu hajaandika, naweza kuwa alipata lakini amekosa. So iko watu kwetu walikuwa na campaign na wakawa wengi. So sisi wazee tukawaambia wengine, nyinyi baki. Tukaambia wewe utabaki. Wewe utabaki. Unajua mmoja alituambia nini? Hata hiyo kukosa iko na kitu. Unasikia? Mimi nitaenda lakini hata hiyo kukosa wewe unasema utakosa. Iko na kitu. Kwa hivyo dada yetu hata siku hiyo alikuwa hakupata, lakini sasa yako na kitu. Yaani serikali mzima hata akikaa hapa namna hii alipata ama hajapata? Tufurahia ile kidogo alipata, ni yetu. Sawa sawa. Mimi na serikali ambaye mnajua inakuja, ambaye tiko kwa roho yetu yote watu ya Northeastern, ni ile kofia anabeba. Kweli ama uongo? Kweli. Leo kama hatutaijenga hii serikali ambaye hata sisi bado tunakula mshahara, hiyo ingine hatujui mahali tutakuwa. Lakini saa hii tunajua mahali tutakuwa. Sisi roho yetu ikuwe mahali mo. Mimi naomba nyinyi hiyo tu peke yake, hakuna kitu kingine. Kwa hivyo huyu mtoto ni mtoto yetu, tukue na yeye. Kwa nia yangu, mimi sijui roho ya watu wengine iko namna gani. Kwa nia yangu na kwa nia yenu wa ndugu zangu, nataka tukue na yeye pamoja. Asanteni sana, mimi sina maneno mingi. Guri karaan oo marna intuu u ordi karo marna intuu u ordi karo mani damir baan leen anag meesha maana gaarin. Waxaan u leenahay gabadha waan qaadnay loo wajiilanimo kuma shaqeyno. beri baan qisa yar baan inii sheegay nin oday Allahu naxariisto uu dhintay ma kuna la dhigi jiray MK Roble. nin baa xanuunsaday aad u jiraday, ninkii guuraga ma dil dhigi jiray sakaraad buu noqday, diin baa la saaray, wax kasta lagu dayay inta la geeyay. qaartii dambu wuxuu yiri ka isoo aruuri askarta jeeshka. dad uun joogay inuu jiro waa laga yaabaa. askartii jeeshka ninkan ka mid ah isoo aruuri buu dhahay. maxaa baa ninkay quraan ii saarayaan buu. waxaan dhahay ruuxa jeeshka quraan yaqaano, maxaa jeeshka quraan isku keenay? marka wuxuu yiri wax lillaahi qabo. quraanka wuxuu yiri la daldalahay laguma bogsado, waxa lagu bogsadaa dadka akhrinaya nooca uu yahay. marka wuxuu yiri waxa dadka jeeshka wuxuu yiri uqdad ma qabaan, xaq bini aadamna ma qabaan, oo dad xoolihiis ma cunaan. marka kuwaasa oo fiican ninkan meel walba waan geynay dibadaha wali waa sakaraade. balkii soo aruur waan soo aruurin ma baan ka keenay, DOD baan ka keenay, meeshaas kugu ii quraanka baan saarnay. quraanka markaan saarnay habeenkii umbu noolay salaad u geeriyo. hadda caafimaadka laba un waay. marka asagii baan weydiyo waxaan soo quraanka naga
soo quraankanaga waaba lagu dhiman markaasuu wuxuu yiri inta dib aan la marnay kollaba taariikhda muu dhaafeen laakiin wuxuu yiri inta culimada martay maanta wuxuu yiri waa laga samay marka hadda anaga faataxadiina mulki way ku soo gali niyada yeesha mana tabatabaynayna anaga waad ogtihiin duqeyba qaadeen dad balaan oo youtube-ka ku jiraan laakiin anaga waa markii ugu horeysay wax badan oo soo sheeganayna wuu jiraa la yaab ma waxa tolkeena dhex joognaa nin walba waxbu yuu u baahan annagana waxaan u baahanay waxa weeyo mulki waxaan la geleynaa memorandum of understanding agreement aan la geleynaa mulki mheshimiwa mulki warsame noo soo dhawaaw waa nasiib badan tahay dhammaan duqeyda sidii adi lagu soo waajibe ruux loogu imaada male meeshan intaasoo madaxa yaa fadhi chairman veteran fadhi chairman midnimo fadhi secretary general yaal fara badan fadhaan dad kala duwan oo nooc duqeydi way fadhaan oo Soomaali weyn waa nasiib badan soo dhawaaw ilaahay baa ku haleelsiiyay maanta ina aadna cosato ilaahay baa ku haleelsiiyay safartana mar horaan bilaawne waad sigtay tanayto labaad aan ku noqonayno waxaan u malayn waa in Soomaan qaadan gabartan iida gacmaha kor u taaga ma sha Allah waan dhameeyay wax yar nima wax baa soo guguuxay looleey baan ahay looda sac markii ma arag dhalaan uu yaho uu soo yeera agu soo yeero wax kala daba socdo ku dari waayo saca uu jiray ma fahanteen gabartan way soo yeertay waana soo insaaraxde waak way soo yeertay insaaraxeedina waa kan dad baa soo yeeray insaaraxna aan kala soo ma fahmin marka nimayo duqeyda qiimaha badan meeshan aan ahaano halkan aan ku duceysano halkan sidii ay ahaan jirtay aan sameeyno tan ignayto aan qabanno gacan illa fal baa jirnimo wax baa jira ilaahay iid ha ka koriyo iid sidan waa bay soo gashay illa adkeed bahasha siyaasi la dhaho waa wax la yaab leh culimada iyo sheekhi iyo qaa'id ma kala garanaysid mulki way soo gali ila safartan iida MOU gaan la galno inay saxan inay kala inay ilmo korsana ma sheeg karno anu maada baan ku dhimanay iyada iyo governor aan dhisna may soo galin laakiin MB iyo MCA iyo senate aan dhisna way soo galeen simna mana laga qabanayo waa awra waa dib communication authority of Kenya la hadalnay ruuxi simnaga qaban waayo inay chargeable offense to yaaram dawlad inay noo mariso adana bilaaw insha Allah anagoo chairman veteran Garissa County na de weyn tahay hadda inta noo imaado waxaan magaalada degan balanbalaa jirta luuqo areas zote marka insha Allah kuwa barkood siin bay soo direen hada next time marka wala la soo dhawo hal wala bugay horta nimayo nin baa ka dhawaaji meeshan baasha siyaasadda leeyahay horta gadaal oo noqdo mulka horta veteran markana leeyahay anaga horta meel baan ka shaqeyn jirnay maana aqaanin kan baa ki imaaday sidii qabil fulaan waxaan ma naqaan anaga meeshana waxa weey baashan waraal siyaasadda leeyahay waa maashad kii galka aan xulin jiray madaxweynaha wadanka ahaan jiray mooy waxa la jiray waa siyaasad oo gari waa la jiray meel dheer buu arkaa waa la jiray Soomaa saas ahaan jirtay mugta marka wuxuu dhigi jiray siyaasad ambaya maasha Allah hadda si fiirsana waa run waad arkaysin maxaa maanta ani kuura horta kuuraan lagu sheegay maanta walaal hata maha waa ninkii wax wala qabsan kartiin nin wax tar leh maanta waxaan u maleynay dad baa hadda ku haya magaalada war shanta sana
yaa noo soo gaabiya wuxuu ka shalaynayaa nin uu doortay muu ka fikirin waay kuurahaada macnuu leeyahay kuurahaada culays buu leeyahay adigana isgabi waan intufaana umalaynaa marka waxaa waye gabadha walaashaan saan u qaadnay walaalihii hadda kulli waxay dhahan waan qaadnay dad waxaa anaga veteran haddaan nahnana waan muslimaam yotu manajua waa straight cid kasta walaashay veteran waxaan umalayn baashii mulki cid kasta ninka u yar hadda ciddiisa waxaa ka soo bixi 8 qof oo gabandha haystaan ana hadda ilmihii iyo gabdhihii daaxisa iyo xaasaska waa almost 18 wixii hadda ID haysto kuwaas waa kuwa aniga aan mas-uulka yago wataenda mahali wako chini yangu marka nin kastaba eebo fikriya nin waxaa jirtaa horta aan hadda aan garanayo oo mejan fadhiyo oo 26 qof my neighbor marka walaashay soo dhawow ani hal baan rabaa inaan ku noqdo dad islaam baan nahnay gabadha walaashaan way noo imaaday veteranimadii meelo badan baan soo marnay anaga dadkan gaarsarta oo kale ama weligood meeshan joogi jireen waxaan u malayn waxaa la soo shaqaynay dad tofauti oo dab qabiil tofauti oo dabci tofauti leh wax badan baan garanaynaa oo hadda ka maqan dadkeena hadda maanta magaaladan gaarisa macashadayna ayaan ku ciyaaray macashadayna waxay ku xiran tahay siyaasi marka walaalayaal ballanka aan galnay dad islaam baan nahnay horta gabadha markay naga tagto anaga waan isku noqon doonaa saan hadal uma daynayno weli waan fadhiisanaynaa xisaabaad baan gelaynaa anaga dhexdayna ballankii aan galnay ilaahay baa shaahid naga dad weyn baan nahnay ana hadda xaafadayda markaan tago hadda maanta kusha maranay meesha nikupea watu amri waryaa iyo gabar kibanda yako wekea mkanto way dhamaatay taa ballanka aan galay hadda meeshan aan ku galay ka noqod ma leh horta taas ogaada nin kastana taa niyada gasho samana fahmi nin kastaba taa niyada gasho waan ku noqoni ilaahay baa shaahid naga ballan baan na galnay meeshan galaynana waa ogsoontiina adduunkan dhaar kasta qof baa la xabaalaya iko maswali pale mbele ahadi baan galnay ahadiga waana hadda kama manyumbani cidii baan tutoe amri si jeshi ilikuwa natoanga amri kwani ilikuwa ni kumbembele sana kwenda kwako saa hii kwa nyumba mambo imelala asante ati hewe la wadai hewe wada lakini mambo ya women rep hiyo nimemaliza wapi kwani wewe si head of the house atakutolea amri na magari way dhamaatay saa amar u qaadan jirnay amara loo qaato bilaamayn waxay ku fiican yihiin laakiin mogtahay kaambiyay deganaa jireen waa kuna discipline wanajua akileta mambo tarabika so way dhamaatay mid kale baashan siyaasadda la yiraahdo ana waxaan rabaa marka inta ka tagno anaan dadkeena xoogaa cilmi aan siino oo ciidaha waa dadkeena kuwa nala joogin ma jir rag ee bilcamba baashan siyaasadda la yiraahdo walaalayaal waa macashadii ilmahaada ku xiran tahay aday kugu xiran tahay bulshadan kulli hadda nala degan ee dhibkan hadda gaaraysa haysto kulli biyaa laga hadli istimaal laga hadli waxan kulli inaada to round siyaasay ku iman dawadeedu waa siyaasad enda kwa mtu astima tuko bula fulani stima inapoteanga manager utaga power si mko na mwanasiasa marka shan sano inta oil leed arrin mar bay kula sameeyay Soomaali dhada Sooma gabadhan saan u qaadna waay insha Allah dariilka arka hayana iyo dadkii meeshan ka hadlay insha Allah ameengiya ana kana dadaal baan nagal rabaa aadan u dadaalno tucelimisha kana maama yetu tucelimisha watoto yetu qof adu ku imaado baada ya mulki laakiin waa adiga go'aanka meel baa saaratay mugta aan biyay black and white wala haddi baan qaade maaba bana kula ya mwenzako bana yoni haramu
فيري أحد بان قادة لأن إسلام أو مسلمان ولا نقول والقوي ماذا سما مال فلان الغربة أحد بان قادة تعرف فلاني سكو فلاني هبلاي بان أحد كقاضي إيه ملاله يسرود يوماتنا مرضى ميانا مغلين veteran ba meel fadhida oo falageer lama ina laba iyo saddex mina jaa yeeso kosa utakuja kusikia wamekaa mahali fulani amechukua mtu mwingine lakini mulki waxaan ka ballan ka qaaday veteran ambaye aniga inta ugu xiran wako majority in Garissa County iyo imalala nasukuyo ilaahay yira adiga oo noo yeeranin baan kila center aan ka dagaalina ballan Soomaali gel afkari meesha أنا كبترن معاه قبيل ما نخش قنجر دمايد تاينا ويد لما تبلن صار وقالنا ويد لما توقع أنا هرت أحمد هان بكتي من الجوا أنت نزوري مسلمان ما يانغو نيبي كل لجا تي ويرجين كويت ويرجين يعني سياسة دم حيكون ساعين هذه what your own brother and sister أو سياسة كجرو أو أحب كو قبيل يسمى جرو ما يجي وكجرو حق هذا ما يجي وكجرو قف كان عاد كفهم يا ديجا سياسة دين عايز كاجرتها وين توانا عمرنا مركا وين مدام بولكي نقول وزي والله كابا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واد نقيسان ولاشين اي والكون اي ملكي وكيرا كفتميني حوا وحاتري وحان حوا رجان لا يعتر وحما لاست تايم وان كدورنا سوماين وان دعدي قفرنا وان دورنا قفرني ان دورنا مو دعي سو داشن وين نسيب حييني بعد كودن فيعنا سي ما هدنا اد نقول دعدا يا marka gabadha arrinta ay ka dhawaajiso arrin aad iyo aad u wanaagsan waana soo dhaweynaynaa wixii ilaahay qoro lama gafo laakiin annaka waqtiga ay sayd waan la ximaartamaya waxaan sameeynay bidii weyn baan sameeynay odayaashan waa odayaal ballan leh qowl leh waxaan u malay ilaahay waa ku raayay sida hadda odayaasha kale oo magaalada ugu maana xogaa daamar iyo laablaab ay kama aqaanaan meeshu marka ay ku jeestaan ama ku guuleystaan ma ay ku guuleysanin si uga soo noqdaan waxaan u malay way adag tahay sida aad sheegtana waxaad tiri walaalka horeen mooyi kala maxaan male mideeda labaad xogaa hadda waan ku yar gabi lahaa gabay waan ku yar dhufan lahaa laakiin أفكار من كان يوقف تهداي ويستوي صباح بالير لو هذا الشيء اللي يشيء إلى أن تنسوا اللي في حقا ما تقدر يرفع هذا قص لي ساكب بحلاد ماشى يا مركا والله ما صنت هاي وكسود وينا خير الله قصير ماشى ما أنت هذا الفرق ما بعه دقاس ودقة محمد عياله وأتقرب الملاي وأتشام جودة في ترانس دقة إننا وحاوي جروب كلام بدنا مليرو ويتشام إنه يهاي سو أضياش لبضة واتشامن شام جودة في ترسنا وكا مركز ودير إلو دنيا رحسنا مركز ده official مالنا مركز وجابنا يا جبنا وحبي نقعد ستي إن قريب استعجنا نقعد ستي دي لا رالك نقطة يقول ستنا بالله ما قاعدين نقرب استاجي إلهي وحنا ورجينا إن وحرت إن الله سيو أنا كان هذه وحالي ولا لك الله رسمه كلام عن ماله وينو صور مرته إلنا حارس إلو فيريو عدس كيك وإنت mid kale baad waxaan galnaa waa siyaasadna wax waa la dooran waqtigan waa imaan wanay tagi laakiin isku xirnaashada iyo midnimada inaan muujino iyadana marka warkayga uu gaaban yahay taa horaan soo hadalnay waxaan isla garanay Saturday-dan dhana laakiin waxoogaa masiishi waa soo gashay marka shalay ilaa casarka waxoogaa kibi baa jiray ciddii gabadhii ka soo bixisay cid laga dhintay heedo murugay wax ka jiraan kidooga marka shalay saasan ku daano casar leed baan tangaaseen inay maanta fadhiga uu noqon waayo marka hore inaan bedelnaan rabna sabti hadda ka dhigno ama isniinta moojaawo haddana markii uu suurtagal way soo gabadhii baan u yeerno waan la soo qaadanay inaan maanta ka dhigno waana ku mahadsantihiin codsiga aan soo codsanay saad uga soo jawaabteen oo imaateen waad ku mahadsantihiin mideeda kale intan rabna inaan idin weydiino warsaan yeelna iyadoo meesha gaarin baa naga hor qaadeen oo gabadhii waa qaadeen
iyo tunashukuru kwa nini tunashukuru tunashukuru Allah subhanahu wa ta'ala baada ya hiyo tunashukuru yini kwa sababu gabadha waa gabadha u horeysay ee katika Garissa County Women Rep noo imaato si kweli soo gogol dhigato waxaana noo sheegtay waa sida idin sheegtay walaalka kala horreyn ma ogiye kala macaan mare meeshana waa ku idin la Garissa County nin kasta jooga cid Soomaaliya maanta aan joogin labda ruux cudur daar qaba waa gaar laakiin cid Soomaaliya maanta meeshan aan fadhinin ma jirto waxaan maqlay Xasan Waaqo wuxuu ugu yeeray نور دقالة سومالي أبو سومودهن محمود هرت محدا سومالي أبو سعوة واحد سومالي أنا كنا قمنده بورم وأنا كنا قمنده سوساس ما وادت أنا كنا قمنده سعوي هذا الكا مركز حسن واقع هذا الكيسوان مقليسين نين كستان ماشي مو هذا وقاعدين كيسة كلا إلى الصومالي وحجوا عملي على الحسين بوانين كلا على الحسين وحن مقلة وحاجر تأهلن ضرورة أما كين بليه هوكو مركز هذا أول horta waad mahadsantiin boqolkiiba boqol waad mahadsantiin sida aad arrinta uga jawaabteen gabadhana way nagu cusub tahay wali bay soo galin waa ugu siyaasadda ugu bay ku tahay maadaama safarta hore aad qaadeen sida ay sheegtay aad u baan sheegatay oo aad qaadeen laakiin may mira dhalin arrintii waxoogaa waxaan u malayn jaama mucaarad ay ku taagneed soo saas maaha jaama mucaarad ay ku taagneed marka sida awgeed ilaahayna ma qorinba wuxuu ilaahay qoraan la quudan soo maaha hadda laakiin maanta rajo fiican baan qabnaa gabadha waa sidaan u qaadna horta munaafiqnimo meesha laga bixiyo sidaan u qaadna ha ahaato nin walbana waxaan u malayn sidoo ninka sheegay 18 buu sheegtay asaga ruux inay cidiisa ka soo bixi 18 kuura soo maaho dad 25 ay ka soo bixi baa jireen marka ugu yaraan 3800 area waan heli karnaa markaan guddi Garissa account aanano courier naga imaanay wixii kale booster noqon inta markaan bixino wixii dadka kale waxay noqon in la booster gareeyo marka sida awgeed qaaditaanka waan qaadna isku ma haysano taa anaga noo taala anaga familga anaga waxaan u maleyn nin inta ka dambe kala maxay yiri ciidanka san isku ogeyn laba umaana barani iyo laqdaba umaana barani ha discipline forces sida aan han daacad ku han gabadha waa inaan si daacadnimo ku daba istaagna waxaydan aan meel saarna ayada soo ma aho turu kala markay la soo baxo waan arkayna soo ma aho marka intay xafiiska tagto firis degan markii weyn ay daba dhulka saarto oo ay tiraahdo maxay waxaan siinkan yaal ay saarto bahalkii waan arkayna soo ma aho nooguma horeysa meeqa yeesh sina mingi sana wengi sana laakiin ma filay kullu ngan sasan ka dharka eka marka saasa jirta hadalka waan soo xireynaa haduu ilaahi rabbi idnillahi alkarim waan soo xireynaa gabadhan fadhi kale leedahay meel bay urdaysaa hadalkan inta ku soo xireynaa biidnillahi alkarim sidii aan u qaadnay halka sawti aan ahaano umoojan aan lahaano dad ilaahay ku xiran muslim baan nahay muslimnimadii hal tixgeliyo qowlka hal tixgeliyo tii aan soo barnay ku toka maalin dadkan meesha degan anaga isku mid manihin dadka waa nin gaar Soomaaliku inta kala qaaday maanta ama loo ka imaado ama geel ka imaado ama magaalada awliga meel u dhaafin adi ma qaabel ba soo barta adduunka il ba soo warita ma qaacid oo dhaqan gaar la soo laqat niminka sana aragta dheer baa leedahay oo dadkan ka duwan marka aragtada eedeeda waa inaan dadka tusnaa oo wax noogala daaydo aan hagaajinaa qof dadaalo danta guud ee bulshada aan ka daalin iyo mulki ducaysa buu dadku wada calmaadeen qof dadaalo danta guud ee bulshada aan ka daalin iyo mulki ducaysa buu dadku wada calmaadeen